Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada daawadayaal mar kale iyo muuqaal cusub kaasoo kaga hadli doono kowci oo kaafi naftaada. Noloshu waa sallaan, mana kori kartid adigoo jebada gacmaha kula jira. Dhageysta guusha waxay ku jirtaa cibaadada Alle iyo waalidka aad ka ducaysato. Ta saddexaad, ficil iyo dadaal badan. Waqtigaaga u fiirso, naftaadana la sheekayso. Dhageysta badi cibaadada Alle. Cibaadadu waa furaha guusha. Maalin kasta waxaan maqalnaa liibaanta u kaalaya. Haddaanad ka jawaabin, waqti kalena maareyn maysid. Ku dadaal wax akhriska badan, waayo akhriyaha maantu waa hogaamiyaha berri. Rumee hadafkaaga. Haddaad doonayso inaad guulaysato, baro dariiqada kuwa guulaystay. Si aad u hesho waxaad jeceshahay, ku samir waxaad neceb tahay ee aad maanta haysato. Dadka u muuji ixtiraam. Ha noqdo hamigaagu mid sareeya oo ha noqdo hami ummadeed. Haddaan tusaale usoo qaadano Maxamed Alfaatix, wiilkan dhallinyarada ahi wuxuu xambaarsanaa hami ummadeed oo ah furitaankiisa Qustantiniya. Ma ahayn hami shakhsi, mana ahayn hami qabiil, mana ahayn hami qoys, ee waxay ahayd guul u soo hoyatay ummadda islaamka dhammaantood. Waa kaabuwan Soomaaliyeed leh, halka damaca khayrkaa yahay dunidhan maaree, adna maaha dib u guur oo hankaaga duuduub. Darajada wax kaa xiga oon dadaal lahayn sheeg. Qofka aan bilowgiisa hore guban, nolosha inteeda dambe uma qurux badnaato. Ha murugoon weligaa, hamigaaga dheeree, higsa meel saroo hadafkaaga gaaryeel. Waxaan ku leeyahay dhibta laguma waaro. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kale, inna macal cusri yusra. Culays kasta waxaa ka dambeeya fudayd. Anna waxaan ku leeyahay dhaxal looma yeeshee waa laga dhammaadaa. Ugu dambeyntii waxaan kaaga tegayaa, markaad dhalatay waa lagugu eedaamay, mana garanaysid cidda kugu eedaantay. Markaad dhimato waa lagugu tukani, mana garanaysid cidda kugu tukani. Marka adduunyadu waxay joogtaa inta u dhaxaysa eedaanka iyo salaada. Ka faa'iidayso inaad ciyaar kugu dhaafin waqtiga.